عقاشا odayaashan iyo waxgaradkani ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha degaa galbeedka gobolka Sanaag oo maanta warbaahinta kula hadlayay degmada Ceelaf Weyn ayaa waxa ay ugu horeynba ka hadleen ahmiyadda ay leedahay nabadgelyadu iyaga oo sheegay in kooda beelahaneed ay nabadgelyadu ka go'an tahay baaqna u diray beelaha dhigooda ah geesta kale waxay odayaashan iyo waxgaradkan ka hadleen isla markaasina ku celceliyeen in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu cafis u fidiyo boqor Ismaan oo Maxamed Burmudow waa kuwan odayaasha ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kale faahfaahsan odayaasha cuqaasha guurtida waxgaradka dhalinyarada beesha bahood ee degmada Ceelaf Weyn waxa aanu isugu nimid baaq aanu doonayna inaanu u jeedino madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa kaasoo ah in boqor Ismaan oo Maxamed ay sii daayaan horena aanu sheegnay arrinkaasi imikana aanu mar labaad ku celinayno in boqorkaasi la sii daayo boqorkaasoo ahaa boqorka nabadgelyada kana hadlay nabadgelyada sidaas ayaanu leenahay ku lahayd nabadgelyadana aanu sidii ilaalinayno aananu ahayn kuwa dhaliilaya xukuumadda Soomaaliland hadday tahay tii hore iyo hadday tahay ta dambe waxaanu leenahay mana liicayso mana aha mid jabaysa mana aha mid qof iyo laba iyo saddex toona ay wax yeeli karaan ka gobol ahaan iyo ka xukuumad ahaan ilaahay waxaan nooga baryaynaa nabadgelyo waarta diyaarna u nahay beelaha Soomaaliland oo dhan waxaan leenahay nabadgelyada xasiloonida walaalnimada dirisnimada midnimada dawladnimada Soomaaliland aynu ku nabad iyo caanamaleyna oo sharaf leh oo codsiya u dirayna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi marshaalka nabadda iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Soomaaliland iyo xukuumadda dhamaan in boqorka lagu sii daayo si shuruud la'aan iyada oo sida wararku soo qeexayaan loo marin sifo sharci ah jeesayay sida uu xukumay iyo xeer ilaaliyaha iyo muddada yar ee wax lagu xukumay annagu ma aanu arkayn sharci iyo xukun ma aragna annagu waxaan u haysanaa inuu boqorku ku maqan yahay oo ku xidhan yahay adeer afduub haddii isagoo aan mutaysan boqorkii shalay kursiga saaray Muuse Biixi uu sharci darro iyo afduub uu ku xidhan yahay waa nasiib darro madaxweynaha iyo wasiiradiisa waa inay xornimadiisii u soo celiyaan boqorka waxaan leenahay boqorka iyo cid kasta xarigu waa qabtaa laakiin annagu waxaanu qaadan weynay in la qareen ma qabsan kartid oo adigu isma difaaci kartid oo aan isagu wax qaran oo inta la keenay maxkamaddii ciidamo la wareegeen waxaan leenahay waa sifa sharci darro caalamkana aan ka dhicin odayadu sida ay ka hadleen codsiga boqorkana waa la qabaa haddii uu xataa boqorku dambi leeyahay anigu waxaan qabaa in la sii daayo cafis madaxweyne lagu sii daayo ولوجي شمبر